Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka Dacwo Tube. Kuna soo dhawaada qisadan aadka u xanuunka badan. Balse inteenan bilaabin muuqaalka, fadlan muuqaalka like saar oo na dareensi inaad ka heshay qisooyinka ku cibro qaadashada mudan. Sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka Dacwo Tube, fadlan ku soo biir oo subscribe saaro. Qisadeena maanta waxay ka hadlaysaa odaygan faqiirka ah ee wadada dhinaceeda ka dawarsanaya. Isagoo fadhiyo wadada dhinaceeda waxaa soo maray gaari xamuul ah, dabadeedna odaygii waxaa gaadhay carro iyo bus. Odaygan maskiinka waxa uu leeyahay guri, sidoo kale waxa uu dhalay carruur, balse gurigiisa waxaa ka soo saaray carruurtiisa oo ku caasiyay aabbahooda. Subax waliba halkan ayuu soo fadhiistaa oo ka dawarsadaa. Dadka qaar waxbay siiyaan, halka qaar kalena ay caayaan oo dhibaato kale u geystaan odaygan maskiinka ah. Halkan waxaa ka soo socota gabadh, bal aan aragno waxay ku samayso. Sidoo kale dhanka kale ee wadada waxaa ka soo socda wiil dhalinyaro ah, bal aan aragno isagana waxa uu ku sameeyo. Markii uu agmarayay odaygii maskiinka ahaa, ayaa odaygii gacmaha u taagay isagoo ku oranaya, cuntada wax iga sii, gaajo xanuun badan ayaa i haysa. Balse wiilkii waxa uu ku sameeyay odaygii wax laga naxo, oo waa uu daba tuuray. Haddana waxa uu ka daadiyay lacagtii maanta dhan uu aruursanayay. Haddana waa uu sii caayay, alla naxariis darana. Waa kan wiilkii oo sii socda, waxa uuna ag fadhiistay wadada dhinaceeda isagoo ku sugaya saaxiibadiisa. Waa tan gabadhii oo weli ku soo socota wadada. Markii ay aragtay odaygii maskiinka ahaa, ayay tiri, qof saacideeya meeshan ma jooga miya? Ma fiirin karo qof ku dhibaataysan wadada. Waxa ayna soo aaday dhankii odayga, waxayna ku tiri, waa ikan awowe, aniga ayaan ku caawinaya. Soo kac awowe. Wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu leeyahay, gabadhan maxay ka qabanaysaa meeshan? Gabadhii waxa ay weydiinaysaa odayga, qof miyaa ku dhibaateeyay? Waraysi kadib, gabadhii waxay boorsadeeda ka soo bixisay cunno ay wadatay, waa ayna siisay. Sidoo kale waxa ay ka jaftay boorkii carradii dushiisa saarneed. Wiilkii waxa uu ahaa mid fiirinaya waxa ay gabadha sameynaysay. Waxa uuna leeyahay, wax aan la aamini karin ayaa maanta meeshan ka dhacay. Gabadhii weli maysan ka tagin odaygii maskiinka ahaa, oo waxay kala furtay cunnadii, waxayna bilowday inay siiso. Gabadhii ayaa oohin iscelin weyday, waxayna ku tiri odaygii, waxaad isu egtihiin aabbahay oo 3 sano ka hor u dhintay wadna garaac. Aabbahay wuxuu ahaa qof la jeclaa, waan u xiisay aabbahaygii aan jeclaa. Iyagoo oo sheekadii wata waxaa wadada soo maray 2 nin. Markii ay arkeen odayga miskiinka waxa ay siiyeen xoogaa lacag ah, waxayna ku yiraahdeen odaygii, ow waxaan kuu rajaynaynaa guul iyo nolol wanaagsan. Gabadhii ayaa ilin ka soo daadatay, waxayna ku tiri odaygii, awowe waa arrin xanuun badan inaad wadada fadhiisato, waana ka danqanayaa. Iyadoo gabadhii sidaas leh, waxaa wadada soo maray 2 wiil oo dhalinyaro ah. Odaygii ayaa gacanta u taagay, mid waxa uu siiyey lacag yar uu watay, midka kalena waxa uu siiyey maro uu watay. Daqiiqado kadib waxaa soo maray gabadh iyo aabbaheed. Markii ay soo gaareen odaygii, gabadhii waxay aabbaheed ku tiri, fiiri aabe, ninkan maxaa saan u galay? Aabbihii waxa uu ugu jawaabay gabadhiisa, waa nin miskiin ah oo tuugsanaya, annagana hadda ayaan lacag siinaynaa.
lacagtii waxa uu dhiibay gabadhiisa waxa uuna ku yiri awoowe lacagtan u gee. gabadhii lacagta ay u qaaday waa ayna siisay odaygii miskiinka ahaa. sidoo kale ninkii lacag kale ayuu ugu daray. sidoo kale waxa uu siiyey jaakad uu xirnaa si uu dhaxanta iskaga difaaco. odaygii miskiinka aad iyo aad ayuu u faraxsan yahay. waxa uuna leeyahay aad ayaad u mahadsantahay, si wanaagsan ayaad ii caawisay. wiilkii dhibayay odayga markii uu arkay sida ay u caawinayaan dadka ayuu oohin bilaabay. gabadhiina waa ay sii macasalaameynaysaa. waxayna leedahay awoowe cunnada si fiican u cun, mar kale ayaan kulmi doonnaa. wiilkii dhallinyarada ahaa waa uu soo kacay. waxa uuna soo aaday dhankii odayga isagoo ku leh awoowe aniguna waan ku caawin karaa. odaygii markii uu arkay inuu wiilkii ku soo socdo lacagtii ayuu gacanta ku qabsaday, gadaal ayuuna u sikanayaa. markii uu yimid waxa uu ku yidhi ha cabsanin awoowe, mar kale kuma dhibaataynayo. kadib markii uu salaamay waxa uu siiyey lacag uu isagaba soo tuugsaday. waxa uuna ku yidhi awoowe waxaad mudan tahay in lagu garab qabto. aad ayaan ugu xumahay dhibkii aan kuu geystay. waxa uuna u kaxeeyey gurigiisa isagoo ku leh maanta kadib aniga ayaan kuu soo tuugsanayo. sidoo kale awoowe waxaad i siisay cashar aad ugu wanaagsan nolosheeda. haddaba waxaan idinkula dardaarmayaa inaad wax sadaqaysataan. qof aan wax sadaqaysan karin ma jiro. haddii aadan awoodin shilin aad sadaqaysato, waxaad awooddaa inaad kelmad wanaagsan sadaqaysato. sadaqaduna yaraysi ma leh. oo nabigeena Muxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatay waxa uu yidhi naarta wax iskaga xijaaba, haba ahaato xabad timira jeexeeda. sidoo kale daawade, maalka Ilaahay baa iska leh. cidda uu doono ayuu u badiyaa, cidduu doonana ka yareeyaa. qolo walbana waa lagu imtixaamayaa. haddaad rabto inuu Alle raali kaa noqdo, sadaqadu cadhada Rabbi ayay damisaa ee wax baxso. haddaad darajo sare jannada ka doonayso, wax sadaqayso. haddaad doonayso in maalka lagu barakeeyo, wax bixi. haddaba walaal gaadhsii cid kasta oo khayrka aad la jeceshahay. laga yaabaa inaad qof aad gaadhsiisay shilin uu bixiyay aadna ajar ka hesho. haddii uu muuqaalkan ku cajabgeliyey, fadlan like saar. waa anigoo ah Zaki Maxamuud oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الحمد لله الحمد لله على الأفراح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان. الحمد لله الحمد لله تزيد أفراح أفراح تزيد أتراح أتراح تزيد أفراح. الحمد لله تزيد أتراح. الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي. الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي. الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم. الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم. الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم. الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم. الحمد لله الحمد لله على الأفراح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان. الحمد لله الحمد لله تزيد أفراح أفراح تزيد أتراح أتراح تزيد أفراح. الحمد لله تزيد أتراح. الحمد لله مع الأذكار نرددها مساء وصباح. الحمد لله وفي الأسحار مع استغفار بكل دعاء. الحمد لله دوم وأبد. الحمد لله بقبل وبعد. الحمد لله دوم وأبد. الحمد لله.